Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij aad u xiiso badan oo ku saabsan Shiinaha oo aad u taageerayo dalka Iran kadib dagaalkii 40 maalin ka socday gudaha Iran. Shiinaha ayaa lagu waramayaa inuu Iran gaarsiinayo nidaamyada raadaar casri ah oo lagu ogaanayo gantaalada Mareykanka, Israa'iil iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa dagaalka si la mid ah. Ruushka ayaa doonaya in la ballaariyo taageerada uu siinayo Iran sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday sirdoonka Mareykanka oo soo xiganaysa warbaahinta CBS News. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo warbaahinta ka hor akhrinaya warbixin laga qoray saameynta dagaalka uu ku yeeshay ganacsatada yaryar ee Mareykanka waxa uu yidhi malaayiin ganacsi yaryar oo Mareykan ah oo ay ku jiraan dukaanada raashinka ee yaryar. Maxaa loola jeedaa dukaan raashin ee yar? Weligay hore uma maqal ereyada sidaan loo dhigay. Waxaan ogahay waxa uu yahay dukaan raashin ah, laakiin sifada hore ee lagu sheegay maqaalkan weligay ma aanan maqal. Haddii aad u fiirsato dukaanada yaryar ee raashinka, waxaa qayb ka ah goobaha xalaasha ah ee Soomaalida iyo Muslimiinta, taa oo uu ku xaqirayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa iyagu ay yihiinba. Dhinaca kale, war la yaab leh ayaa soo baxaya kaa oo ku saabsan burbur uu qarka u saaran yahay ururkii awoodda badnaa ee lagu magacaabi jiray NATO. Dalalka Yurub ayaa isku diyaarinaya inay ka hortagaan isbahaysiga NATO inuu burburo, iyagoo aaminsan Trump in uu doonayo Mareykanka inuu ka saaro NATO. Waxa ayna raadinayaan qorshayaal isbahaysigu kusii dhisnaan karo marka uu Mareykanka ka baxo. Arrimaha ay hadda ka fakarayaan waxaa ka mid ah dalalka Yurub inay soo celiyaan sharciyada muwaadiniintooda ku qasbaysa inay noqdaan ciidan, meeshana laga saaro farqiga u dhexeeya tiknoolajiyada dagaalka gujiska iyo diyaaradaha Yurub iyo Mareykanka u dhexeeya, maadaama awoodda isbahaysiga ay ku dhisneyd Mareykanka. Balse waxa ay qiranayaan inuusan jirin dal Yurub ah oo buuxin kara booska hogaaminta NATO oo Mareykanka uu yahay tan iyo markii isbahaysiga la dhisay, sida uu baahiyay wargeyska Wall Street Journal. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya Subramanyam ninka lagu magacaabo ayaa warbaahinta u sheegay in dalalka Faransiiska iyo Ingiriiska inay u soo bandhigeen Hindiya inay ka qayb qaadato dadaallada dib loogu furayo marin-biyoodka Hormuz ee ay xiratay Iran sabab la xiriirta inay Hindiya xiriir wanaagsan la leedahay Iran oo ay ka hirgelisay dekedda ugu weyn ee meel ka baxsan dhulkeeda ay ku leedahay, sida ay warisay Al Jazeera. Sida aan dhowr jeer hore idinkugu sheegnay wararkeennii hore, waxa aan idinkugu sheegnay in Mareykanka uu u jajaban yahay inuu wada xaajood la yeesho dalka Iran sababtoo ah dhiigbax dhaqaale ayaa ku dhacay Mareykanka. Taana waxa uu doonayaa inuu markaan iska soo afjaro dagaalka 40 maalin ka socday dalka Iran uu la galay Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinac. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in wadahadallo qarsoodi ah uu socdo Mareykanka iyo Iran, in afgarad buuxda laga gaaro oo ay dhiman tahay farsamo ahaan labada dhinac inay heshiis ku gaaraan, iyadoo warbixintu ay sheegtay inay suurtagal tahay in kulanka soo socda lagu gaari karo heshiis hordhaca kadibna heshiis ballaaran oo lagu dhammeeyo muddo 60 maalmood gudahooda. Waxa aan u joognaa sanadkan Mareykankii oo wadamada qaar ay u soo xaydxaydanayaan, ha ahaata dhinaca militariga hana ahaata dhinaca dhaqaalaha. Taana waxaa sababtay ayaa leeyahay dalka Iran oo bannaanka keentay awood yarida Mareykanka. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta baahisay inay Hindiya bilowday lacagta Shiinaha ee Yuan-ka loo yaqaan inay shidaalka uga iibsato Iran, kadib markii Iran ay ku xirtay dalalka iibsanaya shidaalka inay adeegsadaan lacagta Shiinaha. Warbixintan waxaa lagu sheegay in arrintan ay ku bilowatay si tartiib ah balse ay si joogto ah u socoto. Sidoo kalena waxaa jira walaac ku wajahan Mareykanka oo la xiriira in tallaabada noocan ah ay si ballaaran u faafto, taas oo mustaqbalka wiiqi karta saameynta Mareykanka ee ku tiirsanaanta lacagta dollarka. Falanqeeyayaasha caalamka waxa ay leeyihiin go'aanka Iran waa mid dharbaaxo uu gacantiisa ku dhaliyay ku noqonaysa Mareykanka sababtoo ah hubka ugu xooggan ee Mareykanka uu haysto waa cunaqabataynta. Laakiin sidee cunaqabataynta u tahay hubka Mareykanka? Wax badan waxa aad aragteen Mareykanka oo cunaqabatayn saaraya Ruushka ama Shiinaha, laba dal oo loo arko quwad weyn oo tartan kula jiro Mareykanka. Meel kale kama keenin Mareykanka awoodda kaliya ee
waa mid ka imaanaysa doolarka, maadaama lacagta doolarka Mareykanka ay tahay midda kaliya ee wadamada caalamka ay wax ku kala iibsadaan sabab la xiriirta nidaamka lacagta wareejinta caalamka ayaa ah lacagta kaliya ee la oggol yahay. Xitaa Ruushka iyo Shiinaha ayaa lacagta doolarka Mareykanka wax ku kala iibsada. Taana waa sababta ay u dhiseen isbahaysiga dhaqaalaha ee loo yaqaan BRICS, iyo sabab markasta shirarka BRICS aad ugu maqashaan inay raadinayaan isbeddel lacagta Mareykanka ee doolarka. Gudaha Mareykanka looga arko isku day kasta oo lagu beddelayo hanaanka lagu burburinayo jiritaanka Mareykanka. Ugu dambeyntiina, dhinaca kale, war ay ku farxeen dhammaan muwaadiniinta dalalka caalamka ayaa waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi, kaas oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inay Iran marin-biyoodka Hormuz dib u furayso dhammaan maraakiibta ganacsiga. Arrintan oo uu sheegay inay la xiriirto ama ay la jaanqaadayso ku dhawaaqista xabad joojinta ka dhanka ah ama ka hirgashay dhanka iyo Lubnaan.